nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaashii waaweyn ee madaxweynayaashii hore oo maqan saamilada siyaasadeed oo maqan ayaa waxaa la damcay in shuruuc been ah baarlamaanka la marsado shuruucdaas waan qaadacnay annaga maanta ayaan soo laabanay waan ku soo laabanay maanta halkan waxaan geynay mooshin labada aqal annagoo ah waxaan dhahnay waxaan rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland inaan warbixin ka bixino waxaan markaa mooshinkan u dhimay gudoomiyaha baarlamaanka markii hore wuu naga aqbalay markuu naga aqbalay kadib isku laabtay haddana waxaa culays laga soo saaray madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha urgalno xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland ee siyaasadeed iyo mid amni wadatashina meesha u aaday ayaa markaan soo laabanay Jubbaland waxaa ka dhacday saa ogtihiin doorasho 35 xildhibaan ayaan goobjoog kaga ahayn doorashadaas labada aqal oo Jubbaland ka soo jeeda doorashadii markay dhamaatay si ay la socotaan dowladda federaalka ah waxay weerar ku qaaday dowlad goboleedka Jubbaland ciidamadii qaranka ayaa waxa loo adeegsaday siyaasad dhul xureysnaa al-shabaab laga xureeyay dhul al-shabaab laga xureeyay 10 sano ka hor oo raaskambooni ah ee dowladda federaalka ah ciidamo ku daadguraysa iyadoo rabtay inay khalkhal amni geliso una fududeyso shabaab dhulkaas inay qabsadaan saa la socotaan dhulkaasi waa raaskambooni kudhaa buurgaabe badhaadhe kulbiyow waan dhul istiraatiiji hood ahaa 10 sano soo dhaafay waxaa amniga gacanta ku hayay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland waxaa hore uga baxay meeshaas ciidamada ADMIS waxaa la wareegay ciidamada daraawiishta Jubbaland ciidamada daraawiishta Jubbaland waxay hore u la wareegeen oo ADMIS ay ka baxeen Itoobiya iyo Kenya oo ADMIS ahaa meesha la dhaho ma dhamaato Cabdalla Biroole kudhaa buurgaawo iyo ceelwaq inta waxaa amnigooda la wareegay ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka intaas waxaa la bariyay dowladda inay ciidankeeda way diideen kan hal mar bay waxay u dirtay 900 askari 900 askarina inay dagaalamaan way diideen 700 oo ka mid ah dib ayaa loo soo celiyay kadib markay dagaalkii uga baxeen ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland haddaba markii madaxweynihii dowlad goboleedka Jubbaland la doortay oo extension aan diidnay oo shacabka Jubbaland ay diideen muddo kororsi Soomaaliya oo kala maqan Puntland oo maqan SCC oo maqan nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaashii waaweyn ee madaxweynayaashii hore oo maqan saamilada siyaasadeed oo maqan ayaa waxaa la damcay in shuruuc been ah baarlamaanka la marsado shuruucdaas waan qaadacnay annaga maanta ayaan soo laabanay weerarka lagu hayo Jubbaland ka sokow waan ku soo laabanay maanta halkan waxaan geynay mooshin labada aqal annagoo ah waxaan dhahnay waxaan rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland inaan warbixin ka bixino waxaan markaa mooshinkan u dhimay gudoomiyaha baarlamaanka markii hore wuu naga aqbalay kadib isku laabtay haddana waxaa culays laga soo saaray madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa la yidhi mooshinkaasi warbixinta ah nimankaas waxay kaga hadlayaan arrimo siyaasadeed arrimo amni way kaga hadlayaan ka jooji waxaan dhahnay haddaad naga joojisid baarlamaan ma furmayo waan kuu soo wadaa baarlamaan ma furmayo dhahay meeshan wax kooram intaan maqnay annaga wax kooram ka jira ma laha waa feeg 170 iska dhaaf 110 qof hataa ma jirto baarlamaanka waan arkayseen markaan fadhiisana waxaan dhahnay kooram waan kuu soo wadaa kooramka sheeg waan dhahnay tiradiis ma sheegi karuu dhahay waxaan dhahnay waxaan rabnaa warka inaa la siiyo inuuna sii wuu diiday waxaan go'aansanay guddi sharci darro ah oo aan la isku waafaqsaneen oo suuqa laga soo qortay oo sida hataa heshiiska hore diwaan raacayaa la dhaho isteed walba inuu 2 ku yeesho heshiiska reer la galay ee 2023 hadda Puntland iyo SCC iyo Jubbaland wax guddi ay ku leeyihiin ma laha suuqa bakaraa laga soo qortay waa Cabdilshiideeye guddi la soo qoranayo guddi matala deegaan dad ma aha talaawada waxaa la maasaxin waa been waa arkayseen waa la ansixin ma jirto waana sharci darro waxna kama jiraan waxaan rabnaa waa allaala wixii ka imaada mas'uuliyadda way qaadayaan waxaan kaloo sheegaynaa talaawooyin kale inaan qaadi doono haddii aag laga furay raaskambooni aag kale halkan ka furnaan doona waa arki doontaan maalintan